dowladda boqortooyada Ingiriiska ayaa shaacisay in malaayiin dollar ay u ballan qaaday inay ku caawiso wadamo ay ka mid yihiin Somaliland iyo Soomaaliya taasi oo maanta shaaca ka gaday xogayaha arrimaha dibadda waddanka UK Dominic Raab. dowladda boqortooyada Ingiriiska ayaa sheegtay in lacag gaaraya 119 milyan oo lacagta waddanka UK oo dhiganta 158 milyan oo dollarka Mareykanka oo loogu talagalay la dagaalanka xanuunka COVID-19 ama coronavirus iyo gaajada wadamada soo Korea ay ku dhawaaqday maanta inay ugu deeqayso wadamo ay ka mid tahay Somaliland iyo Soomaaliya. xogayaha arrimaha dibadda waddanka UK Dominic Raab ku dhawaaqay 119 milyan oo lacagta UK oo dhiganta 158 milyan oo dollarka Mareykanka oo loogu talagalay dagaalanka corona iyo gaajada wadamada soo food saaray ay ugu deeqday dowladda UK. waxaana Mr Dominic Raab uu tilmaamay in lacagtan ay tahay mid loogu talagalay wadamada Somaliland, Soomaaliya, Yemen, DRC Congo, South Sudan iyo Central Africa Republic. dowladda Britain ayaa ka mid ah dowladaha taageerada weysiiya Somaliland iyo Soomaaliya iyaduna ay dowladda Somaliland ka caawiso waddanka Ingiriiska dhaqaalaha ku baxa doorashooyinka iyo sidoo kale arrimo kale oo ay labada dowladood ka wada shaqeeyaan oo dhanka dhaqaalaha ka caawiso dowladda Britain halka ay Soomaaliyana ka caawiso dowladda Britain dhanka caawinta ciidamada iyo sidoo kale arrimaha nabadgelyada oo ka mid ah wadamada sida weyn uga qayb qaata sidii xasilooni abuur looga abuuri lahaa waddanka Soomaaliya. daba warkani oo maanta ku dhawaaqay xogayaha arrimaha dibadda ee waddanka UK Mr Dominic Raab ayaa tilmaamaya inay tahay mid ay dowladda UK ugu gurmanayso soo hirkicidda xanuunka coronavirus oo dib ugu soo laabtay wadamada isla markaasina saameyntiisii hore aan laga soo kabanin oo mar labaad haddana dib ugu soo ifbaxay wadamada gaar isla markaasina ay dowladda Britain qaaday tallaabadani oo ay ku soo kabayso wadamada soo Korea isla markaasina si aanu saameyn taban mar kale ugu yeelanin xanuunkani. waxaana xogayaha arrimaha dibadda waddanka UK hoosta ka xariiqay wadamada Somaliland iyo Soomaaliya iyo sidoo kale Yemen in xoogga la saari doono isla markaasina dhaqaalahani xoogga lagu saari doono sidii wax weyn looga geysan lahaa si aanu xanuunkani dib ugu soo hirkicin. kusadhow sariflihii sariflayaasha geerumanaya kasjaanjiya adigoon surbacaadin ama aan sara joogsan ama suuqaba aadin haddii aad sarif doonto sanacadii u dambaysay geer baa kuu sahlay maanta. haddaba ka sarfo lacagtaada lambarkan 320431 ama 9320243 anma labaad kugu cesho 320431 ama 9320243 oo aad ii dahabka ka sarifanayso sariflihii sariflayaasha geerumanaya kasjaanji.